SAGA waxay ka imaatay Somali Agriculture Girls Association waa midow gabdho barto kulliyadda beeraha ee ku midoobeen ay sameysteen urur ujeedadeena waxay tahay in ururka gabdhahaas jaamacadaha kala duwan ee beeraha laga barto ku midoobay inay uga faa'iideeno dhinaca baraatikada beeraha iyo sidoo kale waxyaabaha oo hadirtaan ku soo biiray beeraha iyo horumarkeeda waxa la arkay baahiyo badan jiraan ee nagu dhaliyay inaan ururkaas aasno haddii una ururkan maalinta la asaasi lahayn waxa ogahay inta gabdho ee maanta aan isnaqaano yani xiriiro naga dhaxeeyo problemyo ay soo arkaan iyo problemyo aan aragno isku keenan wada xalino ma dhici lahayn in xiriir guud ah sameeyno gabdho waxa jira gobolada ka barto kulliyadda beeraha oo dugsi sare beeraha dhigtaan in gabdhahaas laftooda aan u sameeyno inay jaamacad xamar u yimaadaan ama meelahooda xitaa jaamacad kulliyad beero looga sameeyo kaliya aysan ku ekaanin dugsiga sare ee beeraha inay bartaan aysan ku ekaanin martida kala duwan ee maanta noo imaatay kulligiin waxaan ku soo dhaweynaa beerta SAGA farm gabdhaha gacantooda ay hoosh ku qabtaan inta ayaga beereen legumeska u jeedin ayaga beereen forageska iyo sidoo kale galleydan quruxda badan ee arkaysaan kulli waxa beeray gabdhaha SAGA maadaama aan aragnay aan maqalnay saaj inay jirto oo training dhanka beeraha ardaydu wax waliba u qabanayso baahi walba aan u baahanahay xaqabtiri karta markaan helnay waxaan la soo xiriirnay saaj iyo sidoo kale ayadana waxay kaabtay gabdhaha barta kulliyadda beeraha oo mar hore looga baran inay helaan tijaabo ama tababarooyin noocan oo kala aysan sameeynin sanadkan fursad u siisay SATG inay gabdhahan ku soo biiraan inay ka qayb qaataan tababaradan iyo extension-kan iyo howlahan socdo ugu gudubno u qabsan walaalaha inaga dambeeya iyagana inaan ka saacidno ugu yaraan inay wax qori karaan wax aqrin karaan aqoontan informalka ee haystaan mid nooc ma formal inaan ugu kordhino jeclaan lahayn inaan ugu sameeyno workshops oo hawlal waaweyn inta la geeyo discussion sameeyaan oo dad khabiiro oo expert u ah kulliyadda beeraha la keeno in aan wixii aan naqaano afku naqaan aan practical u bedelno in wax anaka nagu jira aan la share garayna gabdhaha beeraha jooga ee cilmiga yaqaana aan laakiin aan awoodoodi kala dhisnay for example waxa jira gabdhaha beeraha ka shaqeeya fala waraab baak shay ka qayb qaata weedinkii ka qayb qaata inaan nahayn mustigooda waxna ma qoran waxna ma akhriyaan inaan SAGA ahaan u faa'iideyno inay wax qoran waxna akhriyaan waxa ay garanayaan oo informal education kana aan ka qaadano inuu ka faa'iideysano waxaana lagu eedayaa inay qayb ka lahayn majority-ga lahayn dumarkooda oo u kacay inay wax soo saaraan dhulkaas qaniga ah leedahay u kaca oo u soo jeesta inaad barataan culumta beeraha oo wax soo saarataan oo aadan ka xishoonin waxyaabahan dadka caqabaadkan ee hadda taagan oo idin xadidaya ka tagtaan gabdhaha beeraha bartan waxaa dhahayaa isniid jabinina hore u socda hal abuur la yimaada oo ha ku niyad jabina wax ma la qaban karo wax ma la sameyn karo hore u socda dhihi lahaa